عربي بقى سود ولا سود ولا ساكا حالة دود بس مقالة لاسعنود أيان واحد information إدكسينا يا كسر ديران مايو وررك جدا بي دجان كاس مقالة لاسعنود حالة دود بس ما يبغى شان بالصغر هذا يبغى شان هل يلو ما يبغى شان بالصغر واحد waxaan eegi doonaa wararkii u dambeeyay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool xaaladda halka ay ku sugan tahay saaka baan rabaa inaan hal iyo labo idinkala socodsiiyo hadday maqlasaan soo qora waxa ma maqlasaan haadhaha hadday maqlasaan وأنا بلابيا مقالة لاسعنود حالة جود مقالة لاسعنود ساكا وسيدة دي هراء واحد سبدل ما يمن ودقدقاقة ودوين كسيدي بيجوا عيهين دتك الشعب كها يكون دقن مقالة داس ولي وحي جوين ودوين كوينا المقالة دحمرية مقالة لفت كده حالة ده لقص شيء يا ما حالة في عن وحالده آد وككن أو قريبا وحنا كبوحة الشعب قريه دقاتي أو هالك كسوان شعب كنا ولي وحسي ولا كعدون كودي يو حوران كودي كده حقوق حي يربيتان كودا يلو سكوب الصدي إن كعدون كأيسي ودان سيدو كلا إذا مدى البهان تجودهان وحي سمال لأنه شقيني waxa la geeyay magaalada Laascaanood baa la geeyay waxa la deegaankiina maamusha haddaad u shaqaysaan ciidamada Soomaaliland haddaad u shaqaysaan qof kasta oo Soomaaliland ciidan haysta oo mushaar ka qaata waana Laascaanood soo gasha qorshuhuna wuxuu yahay waxa la doonayaa ciidamada dhulbaahante ee mushaaraadka ka qaata Soomaaliland in laga horgeeyo dadka shacabka ee ku dhaqan magaaladaas nin kasta oo u shaqaynayay maamulkaasi waxa la yiri waxaad gashaa magaalada kaalay amniga sug isagoo dadkii xaafad nin walba taliyihii iyo ciidankiisa meeshii uu ka soo jeeday baa lagu yiri kaalay ilaasho oo amnigeeda sug haddii aad sugi karin talaabo sharciya ayaa laga qaaday marka ciidan walba oo dhulbaanta lahaa saaka wuxuu ku sugan yahay Laascaanood oo u shaqaynayay ciidamada nimanka Somaliland qodobka saddexaad barakacayaasha kumanaan qof ayaa ka barakacay magaalada Laascaanood kuwaas isugu jira dumar iyo carruur oo tagay meelo ka fog caasimadda magaalada Laascaanood oo deegaanada u dhow ay tageen dadkaasi meel allaalay meelay ku dambay doonaan lama garanayo nin waliba gaadhigii ugu dhowaa oo haystay u raacay carruurtii iyo dumarkii magaalada waa ka barakaceen intaasoo kun oo qof ayaa magaalada ka barakacay oo ilaa hadda meel ay ku sugan yihiin
iyo meel ay jaan iyo cidhib dhigeen aan la garanayn. wararka kale soo gaadhay waxa ay sheegayaan magaalada laascanood guud ahaan waxa ku gadaaman ciidamada Soomaaliland waxay isku gadaameen dusha guud ee magaalada laascanood dadkii ciidamadii Soomaaliland galbeedka ka soo jeeday magaalada ayay isku gadaameen guud ahaan magaalada ayay ku gadaaman yihiin wadooyinka laga soo gala magaaladaas dadka shacabka ay soo galaya iyo gawaarida way baarayaan marka magaaladii waxa loo qaybiyay laba loo qaybiyay ciidanka Soomaaliland qaybtii dhulbaanta wax la galiyay gudaha qaybtii galbeed ka soo jeedeen nimankan isaaq ay wateen ciidamadoodina waxay ku gadaameen magaalada ayay ku gadaameen wararkii u dambeeyay magaalada laascanood waa inahaas waxaan kaloo idin sheegayaa dadku sidoodii ayay magaalada dhexdeedii u joogaan oo kacdoonkii u wadaan oo wadooyinkii iyo meelihii magaalada laga soo gelayay furimihii oo dhan waa ay goosteen magaaladan luuq walba waa xidhay waa la xidhay wararka aan halkeedii ka soo gubinayna waa warar saxa aad ku kalsoonaan doontaan maaha warar propaganda waa wararka saxda ee deegaanka ka jira xaqiiqda dhabta ah in shacabka la gaarsiiyo oo loo sheego waxay muhiim ka saaran tahay saxaafadda inkastoo saxaafadda laftigeedii ay kala jabtay gobolka qaybna ay u shaqaynayso Somaliland qaybna ay shacabka la socoto marka anigu akawta waxaan ka mid ahay saxafiinta dareenka shacabka qaatay shacabka la shaqaynaya wixii warara oo insha Allah ugu dambeeyay marba si abdeeda ayay idin soo gaarsiinaya hadii Allah idmo wararku dibay magaalada laascanoodna waa inahaas bisaaq ku sugan tahay wixii dambe insha Allah waa idin la socodsiin doonaa hadii Allah idmo waanigu Maxamed Cawil Kawte siyaasi nabadgelyo